مشروع آد أقرح بدن lagu faani karo waay dadka qaarkiisa laga yaabo xoolo ajnabiga waxaan lagu maalgelin waxaas su'aasha la isweydiiyay maxaa maanta ajnabigu u maalgelinayaa xoolo u keensanaya Soomaaliya shalay aan u keensanin iyo darad iyo maxaa sanadii hore iyo 10 sano ka hor 15 sano 20 sano ka hor maxaanu u keensanin oo maanta u keensanaya in la kala qiimeeyo u baahan yahay maanta Soomaaliya runtii oo aan ahayn iska dheh waa destination of investment dadka investorska ah meel ay soo wada aadayaan waay inta mashruuc ee bandinka ah maxaan ku raada ee taagan ee kulli maxaa dhammaan international standard ah hotel haday tahay suuqi haday tahay dekada haday tahay airport haday tahay zones ama waxa loo yaqaano economic zone haday tahay يعني wax badana asul haday tahay khayraadka badda waxa laga yaabaa khayraadka dhanba badda yaan dhihine waxa laga yaabaa Turkida walaalahan Turkida anahay iyo muxuu ahay sahankooda dadka in laakiin markay yimaadeen ka bacdi maanta albaabka Soomaaliya waa la wada garaacaya oil and gas mid raadinayo mid kalluumaysi raadinayo mid beer raadinayo mid maxaan ku raadaan minerals iyo khayraadka la raadinayo inta ka dhaxlaba muxuu ahay Soomaaliya albaabkeeda waa la wada garaacaya sida wasiirku u sheegay